maanta xabsiga dhexe ee xamar laga sii daayay tiro maxaabiista kuwaasi oo qayb ka ah maxaabiis madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu guddi u xil saaray si loo sii daayo maalmaha xorriyadda iyo ciidda oo isku soo aaday ilaa iyo 1 Luulyo ayayna cafiskaasi uu soconayaa qaar kamid ah tiradii maanta la daayay oo dhowr iyo 10 gaarayay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan in xabsiga laga sii daayo waxaana ku jiray dhowr qofood oo lacag $100 iyo wax ka yar ah sanad u xirnaa maantana waxa Ilaahay mahadiisa ah oo Ilaahay baan u mahad celinayaa oo Casiisul Jabbaarka ah kabacdi waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta dawladda ugu sareysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qeyr Allah siiyo baan leenahay waxaan kala u mahad celinayaa Professor Jawaari Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo dhamaan iyo wasiirada iyo gudiyadii oo gacanta ka geystay maanta in anagu banaanka soo dhigaan oo gacanta ka geystay baan u mahad celinayaa aad bay u mahadsan oo waliba transport baan ugu dareynaa tanka xabsiguna na khayr Allah sii baan leenahay maanta farxadeyda lama soo koobi karaan aniga kulli waan kala badbadanahay waxaan xirnaa u maleynayaa bisha 9aad baa la soo xiray 2013 maadaama igu lahaay lacag 6,000 riyaal laakiin $6,000 3,500 ayaa macnaa ii sheeg adiga liigu lahaay 1,500 gabadha iga cafisay alxamdulillah waa mahadsantihiin waxaan xirnaa aniga 15 bilood muddo dhan ayaa xirnaa waxaan u mahad celinayaa ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo si anshax wanaaga oo nolol dhaqmeeyay lacagta lagu soo xiray waxa waaye waxaan walaal loo inqaabi karin markaasna qofka gadaal wax kooga dhiibo waaye igu imaado waxaad gadaal uma noqdo qofna igama dhiibo qiimo iska yar oo $100 ah waxaan ku eedeysanahay lacag dhan $200 aan ayaan muddo u xiranahay laakiin xabsi wax dhibaato kalama kulmin hadda waxaan meeshan ka salaamayaa madaxweynaheena sharafta leh Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre garyaqaan Nuur Diiriye Xirsi oo kamid ah guddiga garyaqaanada ee loo xil saaray inay soo xulaan siideysmada dadka maxaabiista ku wada dambiyada yaryar u xiran ayaa ka hadlay siideysmada dadkani lagu haysto lacag haddii aan xogaa niga taabto dadka lacagta loo haysto waxaa kamid ah qof la soo xiray bishii 9aad ee sanadkii hore ilaa maanta xiran ugu leeyahay lacag ku dhow $30 qiyaas ahaan waxaa kaloo jira muwaadin Soomaaliyeed runtii u xiran muddo ka badan 5 sano lacag dhan $360 marka arrimahan waxay muujinaysaa in loo baahay in lagu waxay isbedel runtii iyo hagaajin iyo dib u habeyn karsoorka dalka runtii waana guul maartay aan Soomaalida soo yeeray waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii gacanta ay naga siiyeen maamulka madaxda shaqaalaha xabsiga dhexe hawshan runtii ma gudaneen haddii gacan nagu siin lahayn taliyaha ciidamada asluubta oo goobjoog ka ah munaasabadii xabsiga looga sii deynayay maanta tirada dadka maxaabiista ah ayaa isagu sheegay in dawladda Soomaaliya go'aan wanaagsan ay qaadatay wuxuuna madaxweynaha ku amaanay in la sii daayo dadkan muwaadiniinta ee dambiyada yaryar muddo isaga xiran kuwa oo heladooda aysan awoodin inay ka bixiyaan qarashaadka yar oo ay dhowr sano u xiran yihiin waxaa nasiib wanaag ah dawlad ayaan helnay dawlad ka fakaraysa maaragtay ninka dhibaatada haysta oo maaragtay muxuu ahaa lacag lagu leeyahay warkaas muwaadinkaas muxuu xiran yahay lacag lagu leeyahay anaka bixinayna soo daa hal cafi dawladda tiri dawladda ciyaar ama khayr Allah siiyo waxa weeyaan waxaan leenahay maaragtay nabad iyo naxariis korkiin Allah ka dhigo waan u mahad celinaynaa